dhowr sano ka hor waxay la soo xidhiidhay wiil dhallinyaro ah qalbigaagaysi ilaah baan ku dhaartay muu hadleen walaalkay sheekh mansuur iyo aniguba halkanna ismaan soo istaageen waxaan idinla jecelnahay khayrka sida nafahayagaba ula jecelnahay haa wallaahi saas weeye bal ila dhegaysa qisadan inay xaaladaada wax ka beddesho ma ogid khayrka ku jira ilaah baan ku dhaartay waxaa halkan ku keenay ilaahay oo kula jecel khayrka wuu ku jecel yahay erayadanna wuu ku maqashiyey jacaylkaygaa ugu waajibay kuwa sababtay isu soo booqda isuna fadhiista dhowr sano ka hor waxay la soo xidhiidhay wiil dhallinyaro ah oo magaciisa la dhahdo axmed wuxuu ugu yidhi sheekh abucaliyo waxaan ku idhi amarkaagaa jira ilaah baan ku dhaartay axmedkii hadda ka hor ismaanan arkin wuxuu ugu yidhi sheekh wiil eedadee dhashay ayaa maalin dhoweed shil baabuur ku dhintay jaamacadday ka yimaadeen isaga iyo 3 asxaabtiisa ka mida soo noqodkoodiina waxa asiiba shil baabuur oo fudud waxa ku dhaawacmay cabdiraxmaan iyo darawalkii madaxa ayaa dhiig kaga furmay wuxuuna galay koomo 3dii kalena waxba may gaadhin gaadhigii ambalaaska ayaa u yimi cabdiraxmaanna gaadhigii ambalaaska ayaa la saaray ayagoo degdegaya ayaa waxay u ordeen xagga iyo cusbitaalkii intii jidka lagu sii jiray ayaa sheekhow cabdiraxmaan indhaha ayuu kala furay hareerahana wuu eegay kadibna wuxuu ku dhawaaqay kelimadii tawxiidka isagoo yidhi laa ilaaha ila allah muxammadu rasuulullah 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 ilaah baan ku dhaartay abucaliyo 4 jeer ayuu kelimadda tawxiidka ku dhawaaqay waxaan idhi mabruuk axmedow sida xadiiska saxiix abu daawuud ku yaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi qofka kelimadiisa u dambaysa adduunyadu ay tahay laa ilaaha ila allah jannada ayuu galay insha allah ehelka jannada ayuu ka mid yahay axmedow wuxuu yidhi isubbal warkii markuu soo gaadhay waxaan aadnay anigii ehelkaygu xagga iyo cusbitaalka si aan meydkii cusbitaalka uga soo qaadno meydkii markii aan soo qaadanay ee aan keenay meeshii lagu meydhayay ilaah baan ku dhaartay wejiga cabdiraxmaan nuur iyo iftiin baa ka baxayay wuuna qoslayaa qosolkii aan ku aqaanay ilaah baan ku dhaartay fartana wuu taagayo intuu gacanta soo laabtay markii uu shahaadanayay waxaan ku idhi maasha allah wuxuu idhi sheekhow bal i dhegayso waan kafannay kadibna waan ku tukannay oo waanu aasnay 3 maalmoodna waxaan ku mashquulsanaa cabdiraxmaan arrinkiisii cumrigiisu waa 22 sano oo keliya wuxuuna ku khatintay 4 jeer oo kelimadda tawxiidka ah waa 22 jir wejigiisa iftiin iyo nuur uu ka muuqdo waa 22 jir fartiisana sidaas ayuu taagay cabdiraxmaan 8 bilood oo keliya ayaa ka soo wareegtay towbadiisii sidaana wuu ku khatintay intay tacsidu socotayba waxaan ku mashquulsanaa siduu cabdiraxmaan ku towbadda keenay muxuu isu beddelay maxaa beddelay cabdiraxmaan 8 bilood ka hor waan aqaanay heesaha iyo filimaantana wuu dhagaysan jiray wuuna daawan jiray wuxuu la mid ahaa dhallinyarada faciisa ah maxaa isbeddelka ku keenay maalmihii tacsidu way dhammaadeen waxaanan ku mashquulsanaa sababtu ku towbadda keenay wuxuu yidhi waxaan u tegey cabdiraxmaan hooyadii oo ah aniga eedaday waxaanan ku idhi eedda wax ma kaa codsan karaa waxay tidhi haa wuxuu ku yidhi waxaan u baanay 2 telefoon ee cabdiraxmaan uu lahaa waxay tidhi waa kuwaneho wuxuu yidhi telefoonkii ayaan furay waxaan eegayey sanduuqa ama waraaqaha meesha loogu soo diray iyo kuwii uu diray waxaan ka baadhayaa waraaqaha sirtii beddeshay cabdiraxmaan wuxuu yidhi sidii aan u rogrogayay waraaqahii waxaan ogaaday ugu dambayn sirtii beddeshay cabdiraxmaan wuxuu yidhi waan ogaaday sababta uu toobad keenay cabdiraxmaan waxa sababtu ay ahayd warqad aad adigu u soo dirtay waxaan ku idhi maaniga kasuu yidhi haa adigaa u soo diray warqadda waxaan idhi maxaa ku qoran warqadda wuxuu yidhi waxaa ku qoran allaha kugu bushaareeya waxaad ku faraxdo waan ku farxay towbadaada iyo inaad u soo noqotay ilaahay ilaah baan kugu dhaariyey ku sugnow ilaa intaad ilaahay kala kulmayso ilaahay farxad ha ku siiye waxaan idhi maaniga wuxuu yidhi haa markii horeba telefoonkaaga iyo magacaaga maan aqoonin halkaasun baan ka helay waxaan ku idhi cabdiraxmaan sidee ayuu u ekaa wuxuu yidhi nin dheer oo cad oo gaadhigiisu sidaa u eka hal xaafaddaad degganaa wallaahi ma garanayo wuxuu yidhi sheekh berritole ma kula kulmi karaa aan sawirkiisa telefoonka kaa tuseen waxaan idhi haye waayahe waynoo berritoole
berridii ayaan la hadlay Axmed waxaan ku yidhi meeshii ma joogtaa haa buu igu yidhi kadibna waan salaamay sawirkii tus baan ku yidhi telefoonkii jeebadiisa ayuu ka soo saaray wuuna i tusay markaasaan idhi ma kaas baa Cabdiraxmaan waxaan idhi ma isagiiba wuxuu igu yidhi haa waxaan idhi haa waan xasuustaa haa ilaah baan ku dhaartay waxaan noloshiisa la kulmay 2 jeer waxaan la kulmay oo ishaydu ay qabatay 2 jeer waxaan codkiisa maqlay oo keliya 2 jeer balse waxaan yaqiinsanahay haddii aan ikhlaas la nimaadno inaan kula kulmi doono jannada insha Allah jannooyinka Rabbi agteeda iyo wabiyayaasheeda allaha weyn ee boqorka ah agtiisa sawirkii ayaan fiiriyaa alla makan ayuu ahaa Cabdiraxmaan ayaan idhi wuxuu yidhi haaye bal ka waran arrintiisa waxaan idhi muxaadaro tan oo kale ah ayuu ka soo qayb galay muxaadaradii markii ay dhamaatay ayuu ii yimid isagoo ooyaya wuxuuna iga qortay telefoonkii gurigii ayuu ku laabtay Cabdiraxmaan dhammaan macaasidii oo dhan intuu duuduubay ayuu ku tuuray qashinka kadibna warqad ayuu ii soo diray uu leeyahay bishaara sheekhow dhammaan macaasidii oo dhan intaan duuduubay ayaan qashinka ku tuuray ilaah baan ku dhaartay sheekhow waxaad moodaa in buurihii culayska ahaa ee saarnaa in layga dejiyey anna warqad baan u qoray anigoo leh allaha kaa farxiyo waxaad igu farxad gelisay toobadaadii iyo inaad u soo noqotay oo u soo laabatay ilaahay ilaah baan kugu dhaariye ku sugnow ilaa iyo intaad rabbiga la kulmayso ilaahayna ha kaa dhigo kuwa addoommadiisa ugu farxadda badan isla markiiba wuu ii soo garaacay oo wuxuu igu yidhi sheekhow ma kula kulmi karaa wuxuuna yidhi mushkilad yar baa ay haysata iminkana waan toobad keenay waxaan ku yidhi berri tole waa jimce insha Allah berri ayaynu wada qadayn doonaa salaada jimca kadib salaadii kadib ayuu Cabdiraxmaan soo garaacay wuxuu yidhi ma kulmaynaa waxaan idhi haa waan kulanay Cabdiraxmaan oo waxaan u baxnay waddo ka mid ah wadooyinka waanu wada qadaynay kadibna Cabdiraxmaan intaan gacanta qabtay ayaan waddada isu raacnay si aan u dhageysto mushkiladda Cabdiraxmaan haysata Cabdiraxmaan wuxuu yidhi waa run toobadaydu waa hal habeen laakiinse waa maalintii abid adduunka igu qurux badnayd wallaahi waxaad moodaa in culayskii buuraha ee dushayda saarnaa in uu iga degay wuxuu yidhi sheekhow dugsiga sare ayaan ka baxay natiijo wanaagsanna waan keenay waxaanan rabay inaan jaamacadda galo balse ma awoodo ma garanaysaa sababta waxaan ku yidhi waayo wuxuu yidhi aabbahay ayaa geeriyooday walaaladayna aniga ayaa ugu weyn hooyada iyo carruurtayda yaryarna aniga unbay i sugayaan ilaa iyo intee ayaan dadka wax weydiisanaynaa oo ayna caawinayaan shahaadadeedii ayaan qaatay waxaan xaraystay shaqo ayaan helay balse waa magaalo ka fog magaalada ay reerkaygu degan yihiin waxaanan ku qasbanaaday inaan ka shaqeeyo magaalada dhexdeeda ma og tahay shaqadu waxa ay tahay sheekhow shaqaduna waxa weeye waa hodheel dadka dalabaadka ay dalbadaan bilaash loogu geynayo waa hodheel dalabaadkiisa aad ka shaqaynayso lacagta laga helinaya waa 1700 riyaal khayr ayaa ku jira ehelkayga ayaa bishu markay dhammaato i sugaya ma ogtahay dalabaadku waxay yihiin telefoonna cayaara ayaa ku soo garaacaya cunto baariday baa lagugu dhahaya cuntadaada ayaa wax laga sheegaya dalabaadkaas oo guriba guri la geynayo laakiinse waa saas ayaa noloshayda ah waanan ku samrayaa ma ogtahay dalabaadka dadkay soo garaacaya intaasoo gabdhood ayaa maalin walba i soo wacaya oo aan wax ka xisaabinaya oo ama xiriir iyo calaaqana aan la yeelanaya waxay dhahayaan gurigu uu midhan yahay ee soo gal Cabdiraxmaan wuxuu la mid yahay dhalinyarada kale wuu isqurxiyaa wuu isnadiifiyaa wuxuu yidhi imise jeer ayaa shahawaadkaasi ay i yimaadeen oo aan ka adkaaday sheekhow anigu iminka waan toobad keenay ilaahay ayaan u soo laabtay waxa ii yaalla waa 2 doorasho in aan sii wato shaqadaas oo aan reerkayga ka biilo iyo inaan isaga tago diintayda iyo hanuunka iyo toosnaantayda darteed arrintan adiga ayaan kuu soo bandhigayaa sheekhow bal ila tali maxaad igula talin lahayd Cabdiraxmaan ayaan eegay markaasaan waxaan ku idhi kelmadahan wiilka qaaliga ahow xasuuso allihii garhka ku yeelay marada kuu gaabiyey ku geeyey masaajidkiisa iyo gurigiisa ee kuu oggolaaday inaad isaga u sujuuddo ha u malaynin
dariiqa iyo waddada aad mari doonta inay tahay mid ubax lagu daadiyey. ilaah baan ku dhaartee waddadu waxay u baahan tahay nafurid badan iyo dadaal iyo shaqo. imtixaanaad iyo fitnooyin badan ayaa jira si uu ilaahay u kala saaro ka fiican iyo ka xunba. cabdiraxmaanow khasaare kastoo adduunka ku soo gaadha ilaahay baa kaa kabaya. waa erayadaydii. cabdiraxmaanow khasaare kastoo ku soo gaadha adduunka ilaahay wuu kaa kabayaa marka laga rabo diintaada. ha khasaarin cabdiraxmaanow diintaada. adiga naftaada iga yaqaana haddii shaqadaasi ay waxyeelaynayso diintaada isaga tag. ilaah baan ku dhaartay qofka ilaahay dartii wax uga taga wax ka wanaagsan ayuu ugu beddela. haye ayuu yidhi, waanu iga tegay. gaadhigiisii buu fuulay. iminka ayaana sawirkiisa igu horraysa. axmed ayaan arrintaana u sheegay. wuxuu yidhi, waa runtaa shiikhow, soo maalin jimca maydaan kulmin? waxaan idhi haa. maalintii sabtida ayuu qaaday waraaqihii iyo gaadhigii, waanuu iska joojiyey shaqadii. shahaadooyinkiisina wuu qaatay, wuxuuna iska diiwaangeliyey jaamicadda melig fahad, wuxuuna iska diiwaangeliyey qaybta shareecada. waana la aqbalay. simisterkii koowaad iyo kii labaad ayuu dhigtay. kii labaad isagoo ku jira ayuu dhintay. abucaliyow ilaah baan ku dhaartee markii uu toobad keenay 2 bilood kadib waxaa yimid go'aan ka yimi wasaaradda diinta iyo awqaafta, waxayna ka dhigtay mu'adin masaajid ku ag yaalla gurigiisa lacag dhan 1700 oo riyaal. alle ma u beddelay wax ka khayr badan mise umuu beddelin? ma siiyey mise muu siinin? waxaana jaamacaddii loogu daray 1,000 riyaal. iska dhaaf adduunyada, iska dhaaf 2,700 ee riyaal. arrintu waxa weeyaan muxuu ku dhintay? 4 jeer ayuu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. ilaah baan ku dhaartee saxaabadu dhiiggooda iyo naftooda umay hurin ilaa si khaatumo wanaagsan alla ugu khatimo noloshooda. ilaah baan ku dhaartee mid toobad keenay ma jiro. hadduu toobad keenayba wuxuu u toobad keenay khaatumada wanaagsan. ilaah baan ku dhaartay culimmada wanaagsan iyo ducaadda fiican waxaa codkooda iyo sawaxankooda loo maqlayaa waa in ilaahay khaatumo wanaagsan ugu khatimo. ma rabtaa khaatumo wanaagsan? ma rabtaa inaad ku dhammaysato laa ilaaha ila allah?